عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو النبي يقول من قال روحي إلى حين يسمع المؤذن مؤذن كمركم بلا سوق آذامية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحنقر يا الله حق لقوا عابدا إنه سجن الله كأهين حاله كلجيه وحلو ذا عباده إيا الصلاة إيا عبادة إيا صفو إيا فعل إيا حق رب مدنيه ورنبا وحدون ما هذا إلى وحلو ذا إنه سنجرين إذن إلهي سبحانه وتعالى وحا أدر هذا الله الله وأفعاش حق أضمها كإيمان إيسا توحيد العبادة أما توحيد الألوهية مرك الله وحلو جيدا أضمضو الله يعابد هيان يبري هيان يتوغ هيان يسكحر هيان أي رجين هيان يتلصار هيان أي عسكن على كلي وينو إلهي سبحانه وتعالى أود سوء إليه هاي وتوحيد الخالقية والرازقية أو الربوبية اللي جدا جره كونك الله مامولا كونك أسقى إسكالة أسقى أطلية خلقي إيجاد بأسقى إسكالة توحيد الربوبية اللي يقنا وأفعال الله سبحانه وتعالى كأفعال الله إلهي أوديسه wuxuu leeyahay awooduu leeyahay adoon dadan oo dhan asagu inuu leeyahay malik boqor uu yahay markaad ka hadlayso ilaahay afcaashiisa waxaad leedahay tawxiid maxaa la yiraahdaa ar-rububiyya tawxiid ar-rububiyya markaad ka hadlayso ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay oo magacyo ah ama sifaad ana tawxiid al-asmaa wa sifaat baadi markaad ka hadlayso adoomuhu inay adoomihiisa yihiin asaga kaliya inuu toogana looga baahan yahay soon iyo salaad iyo zaki iyo xaj iyo khayrba asaga inay la aadaan haday dhibaato ku timaado allah yiraahdaan haday khayr doonayaan allah nasi ahadkay baryahayaan ee baryadooda baahidooda ay la aadahayaan waa maxay waayo waa alla kaliya idan maxaa la qaybiyay waxa la qaybiyay waa xuquuq ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabbi mudan yahay weeye wuxuu rabbi ku tilmaaman yahay weeye tayib لما قيبني الله لما قيبني سبحانه وتعالى وليضب الله صوماليا ودادنا الشيكتا يوحى لك كرور الله كلي عابدا وكسر الهي باب القيب السنبا صدح اله باد امن سنتهين صدح نصارى تهين كريستن باتهين يعني وحال اذا كيس اسكوال ما مقش كيس اسكوال طيب واذا بضر الهي لما قيبني محل قيبيي حقوق أوليها إلهي سبحانه وتعالى طيب أديك أقول مرة اللي يقول إنها تهي آب مرنا ويل باتاي إما سنروح باتادو ويل باتاي مركه هو يدا أبها لغوفيري مركه واحد أشي لغوفيرينا آب باتاي كوا أشي مركه لغوفيرينا ولا الباتاي مر أو باتاي إما سنروح باتاغط من شيطان يجين باطل محاضر هاي يعني واضح بالليمة ما وقت كان لقول عيار عقوش هذا وبين عامضة لقول رجيستو يعني وحاس كإلهية اعتبارات بالله الله إياه إلهي تلمام مليه يا مقعيو وقرآن كيس كل شيء وسنة وقاضي دكتي ومسنة كو إجماعين هابو كله هذان كده أسماء يا مقعية الله كل جيبة إسكال أحد كله لو ذا تشنين محن بيجي ونكون مقعابي توحيد الأسماء والصفات تلماما الله وقوني ليهي يا مقعي وقوني ليهي وأنكو كعاقين الله وقالين باكرة نينك إلهي أنكو يسير اسكول لبا آدمنا يا الله اسكول لبا وحقوق دا يا أسماء دا يا صفات كده حيسينا ومشرك أنكو إلي محن بي حوما ربين وهدي أرتقوا منطه هذا أنكو الله اسكول وماموله بقر نوعه dhib iyo dheefna asaga iskale dil iyo deynna asaga iskale colaad iyo nabad asaga gacanta ku haya boqor weeyad u baahantiin ayada maxaan ku awoodda ku magacaabay awoodi rabbinimo tilmaamihi iyo magacihi ilaahay laba meel mu dhaceen kan waa maxay tawxiid uluhiyya ficlu ibad baa loo jeedaa ficlu ibad way ficlu allah ma aha adoomo falka idinka iman iyo cibaadada idinka iman xagee la aadaysa هذا شيخ عبد القادر لا أدان قالته هذا إلهي لا أدانا مسلمين باتي وحان قيبي ومعي حقوق الله وواجباته وحو الله مذنيه إليه بينك هذا لما أنك هلين إلهي ذاتي سأل الله ما ينقيبين
inaad fahanteen baan u malaynaya dadka lama warariyo iyadoo sidaa tahay ayagaa ugu daran ilaahay waa waaxidun fii daatihi waaxidun fii afcaalihi waaxidun fii sifaatihi kutubtooda ka akhriya uunka axadaan ilaahay xuquuqiisa qaybinayna ma jiraan qur-aanka meeqo goor baad qaybisaan soo hal qur-aan ma aha qur-aan maki madani awaliya aakhir howlaad la kacaysaan war meeqo qur-aan baad sheegtay ku leeyihin waxaan ka hadlayaa keliya hal shay iyo tilmaamihiisa iyo anwaacdiis ma aha waxaan qaybinay alle maxaan qaybinay xuquuq maxaa loo qaybiyey inaad fahanto darteed wax kale ma jiro haddii kale wadaadkii dhulbaantay hadda kor asagoo xanuunsan ii yimid ee yidhi salaadda la dhex fadhiyaa oo kale un baad noqon hadda war ma idinka sheekeeye wadaadkii xanuunsanaa dhowr baan ka sheekeeyey raggiina waxaad u badan tihiin niman hadda soo ordaad u badan tihiin waxaa leeyahay dadku waa afka soo gaadh iyo abaaru keentay baad u badan tihiin almuhim wuxuu yidhi salaadda lay dhex fadhiyaa xaggii see lagugu dhex fadhiya markaan qur-aanka akhrinhayo oon suuratul naas soo maro qul acuudu birabbi nnaas kow maliki nnaas labo ilaahi nnaas saddex ilaahay baad caabudaa bay shaydaan iga dhaadhicinbu nafti baa ay haysa sheekhuu seen yeelaa wuu ooyahayaa hadda ninku muslimka ilmaha ka socota markuu ii warramahayo sheekhu hayla yaabin kan weeye kan maktabaddii sigiska waaga ku taala daar xadiid bay ahayd amin galaba yuusuf xoog weyne baa ila jooga weydiiye yuusuf xoog weyne islama yaqaan waa tahay waxaan nidhi masaas ahaa qur-aan baan ku bilownay feedhana waan ka garaacnay fay wuu ka bogsaday markuu muddo naga maqnaa yuu haddana soo noqday wuxuu yidhi waxaa laga dhex fadhiya ataxiyaatu lilaahi garta kadib asalaatu cala nabi ilaah kale wayaa la yidhi buuri laba ilaah saddexdii baatil baa laakiin labaad caabudaa baa la yidhi buuri sidiiba haddana yeella waagi dambe ninka ilaahay baa caafiyey hadda waxyaanan idin mashquulinne suuratu naas meeqa ilaah bay sheegtay hal allay sheegtay mise saddex ilaah bay sheegtay haddaad tiradaan saddex ilaahay bay sheegtay cishohon la gaadhin maxaa tihiin gaala geesa waaweyn iska ilaaliya ilaahay awood uu leeyahay iyo wuxuu mudan yahay suuraddu ka hadashay qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas dadku allahay caabudhayeen ah boqorka dunida iska lahaa ah rabbigii danaha loo sheeganay axkaam ilaahay uu leeyahay baa laga hadlay hal alloon baa laga hadlaya haddii sidii wadaadka lagugu dhex fadhiisto aad kursi badanaya maxaa ku yaqaana iyo madheedh baa ku yaqaan kuwana loo dhex fadhiyaa mushrikiinta ee soomaalida qaybo ka mid ee ku haya saddex ilaah baad caabudaan